maayarka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa saaka deeq lacag ka gudoomay qurbajooga reer Soomaaliland ee wadankaasi Bristol kaasi oo ay soo wakiisheen Marwo Amran Ismaaciil ugu horeyna waxa halkaasi ka hadashay Marwo Amran Ismaaciil oo sheegtay inay deeqdan ugu tala galeen dadka walaalahooda ee dhimbirka wax ka qaba maanta halkan ku haya lacag dhan $2,000 $1,600 waxaan ka soo ururiyay dadweyne degan ee magaalada Bristol ilaahay ka abaal mariyo 400 aniga ku daray waxaan ugu tala galay dhakhtarkan maanta aynu taaganahay runtii dhakhtarka mar horena waanay dawladdu wax badan bay ka qabatay ilaahay ka abaal mariyo laakiin baahiyo badan baa jira marka waxaan ka codsanayaa dadka qurba jooga ah iyo dadka wadanka joogaba in ay dadkooda hoos u eegaan tabaalaysan maayarka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin eesna qurbajooga magaaladaasi uga mahadnaqay deeqdaasi ay soo gaarsiiyeen isbitaalka dhimirka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga bareena Amran Ismaaciil Ismaan iyo dadka reer UK gaar ahaan Bristol ee walaalaha muxsiniinta ah ee Ilaahay dartii iyagu u sii hor dhigtay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta qiyaamaha baahidiisu badan tahay in Ilaahay kaga kor qaado hawliga iyo culaysyada iyo dhibaatada yaala qof kasta muslimna waxaan ugu baaqaynaa inuu intuu leeyahay waxaan leeyahay wuxuu leeyahay masraqadiisa hore oo sii horumarsado wuxuu hore soo dhigtay qof kasta baa leeyahay mar labaad iyo saddexaad ilaahay waxaan ugu baranayaa cid kasta oo isbitaalka mentalka wax soo tarta waxaan ilaahay ugu baranayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibaatada adduunyada ta aakhirada kaga kor qaado Khalid Xasan Kharash Hon Cable TV magaalada Berbera Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaalada Berbera